saddex arrin oo kugu keeni karto in dhiigkarkaagu cirka isku shareero oo uu kaco. Kow, cusbo ama milix fara badan. Cuntooyinka ay cusbadu ku badan tahay sida cuntooyinka fudud ee maqaaxiyadaha iyo cuntooyinka gasacadaysan oo dhammaantood leh cusbo iyo dufan aad u badan waxa ay keeni karaan in dhiigkarkaagu kaco. Labo, walwalka iyo cadaadiska maskaxeed. Walwalka joogtada ah iyo hurdo la'aantu waxa ay kor u qaadaan dheecaano kordhiya heerka cadaadiska dhiigga. Saddex, miisaanka badan iyo jimicsi la'aanta. Cayilka iyo jimicsi la'aantu waxa ay kor u qaadaan dufanka dhiigga kiisa xun ama bad cholesterolka oo sidoo kale loo yaqaano LDL. Taasina waxa ay keentaa in ay adkaadaan xididada dhiigga isla mar ahaantaana ay cidhiidhsamaan xididada wadnaha ka soo qaada dhiigga, taasi oo keeni karta in uu cirka isku shareero heerka dhiigkarka isla mar ahaantaana ay yimaadaan khataro ay ka mid yihiin stroke. Talo caafimaad. Cunto caafimaad leh, yaree cusbada, samee jimicsi joogto ah, kana fogow walwalka.